farmaajo lix qodob oo u sameeyay ciidamada xoogga dalka waxa ay u ahayd naruuradii ugu wanaagsaneed ay helaan muddadii lagu jiray dib u kabashada xoogga dalka laakiin madaxweyne xasan sheekh ayaa lixdaba cayn wareeg ku sameeyay oo dhinaca kale u rogay kuwaasoo kala kow ka warqabka tooska oo ciidamada furimaha joogan niyad dhis loo sameeyo waqtiyada fasaxyada lala qaato lana tuso qiimaha ay dawladnimada ku leeyihiin tan farmaajo waa hirgeliyay waana sababta askartu ilaa hadda u aaminsan yihiin beddelkeedana dhowaan waxaa lagu arkay baraha bulshada askar ku sugan furimo dagaal oo argixisada hor fadhiya oo ka cabanaya waxay cunaan inaysan haysan iska daa in madaxda qaranku waqti la qaadatee taasoo muujinaysa in askariga Soomaaliga ee furinta jooga uusan kalsooni dambe qabin. labo dib u tababarid askar aqoon leh oo raadinta saanad military oo tayo leh in ka badan 15,000 oo xoogga dalka ayaa la soo tababaray oo lagu wareejiyay xukunka madaxweyne xasan sheekh sidaas oo uu fagaara ka sheegay farmaajo dharaarta xil wareejinta waliba ciidankii ugu badnaa oo hal mar ay Soomaaliya tababaratay oo dhammaan 5,000 oo askari oo ilatiraya tababartay ayaa ka mid ah kuwa lagu wareejiyay madaxweyne xasan sheekh oo hore uu sheegay inay ahaayeen ciidan la iibsaday oo dhintay laakiin maanta soo laabashadoodii kadib xoogaan fariir la ayaa ka soo baxaya tan oo muujisay in xasan sheekh iyo xukunkiisu ay galka tababarada iyo kor u qaadistaba aad loogu fashilmay ama meeshaba laga saaray. saddex in taliyaasha ciidamada lagala hadlo waxay u baahan yihiin oon la abuurin shuraakooyin ama xubnad khibrad sare aan lahayn oo askareed balse ka sarreeya taliyaasha ciidanka xoogga dalka oo dhagta madaxweynaha haysta ayaa ka mid ahayd tan farmaajo waa ka sarrigtay waana diiday laakiin madaxweyne xasan sheekh ayaa haysta 3 ilaa 4 xubnood oo ka sarreeya dhammaan taliyaasha ciidamada iyo madaxda kale ee dalka kaliyana awooddaas ku helay inay qaraabo dhow leeyihiin madaxweynaha. 4 ganacsato qandaraasyada ciidanka la siiyo ama hoggaankaba laga dhigo xukunkii farmaajo iyo xukuumaddiisii koobaadba waa diidan in saadka ciidanka la mariyo shirkado qandaraaslayaal ah kooxihii haystana waa laga qaaday si looga hortago musuqmaasuq iyo gasiinka ciidanka oo aan toos loo gaarsiin xoogga dalka laakiin iyadoo madaxweyne xasan sheekh 2 sano gudahood magacaabistii labaad oo xoogga dalka uu marayo haddana waxaa soo baxaya macluumaadka xooggane ah in qadaraaska ciidanka xoogga dalka loo xiray shuraakooyin ganacsato shibira oo waliba sifaha ay ku heleen uusan daha furnayn sidaasoo kalena taliyaasha xoogga soo maray qoyska madaxweynaha iyo ganacsato ay wada maamulayaan ilaa waqtiganna. 5 dalacsiinta ciidamada 4 sano ka hor waa adkeed in darajada ciidamada lagu kala siiyo hayb deegaan ama sumadda ay Soomaalidu siyaasadda ku qaybsato ee 4.5 laakiin maanta diiwaanada qoran ee dalacsiinta ee ka soo baxaya xafiiska madaxweynaha ayaa taariikhda u galaya si aan hogaamiye Soomaaliya hore u samaynin tan farmaajo iyo xukunkiisii waa ka durkeen inay darajada ku bixiyaan haybta iyo u dhawaanshaha madaxda sare shisheeyaha oo laga hufo gacan ku haynta ciidanka xoogga dalka xukunkii farmaajo dhacdo kale oo ay xagga ciidamada ku suntan yihiin waa in saaxadda laga saaray ciidamo kala jaana dawlado kala maamulaan amarada aan ka qaadan dawladda federaalka dhaqaalahooda meel kale laga baxsho taasoo ka soo horjeeda amniga qaran ee dal leeyahay waana lagu guulaystay ayadoo la xiray xeradii ciidamada imaaraadku oo amaroodu gaar ay u ahaayeen laguna fasiray dawlad ku dhex nool sidoo kale 2 ciidan oo ay taageeri jireen dawladaha reer galbeedka waxaa lagu khasbay iyana inay miisaaniyadda ciidanka xoogga dalka mariyaan ciidanka ay maamulaan amaradana toos looga baxsho taliska ciidanka xoogga dalka taasna waa lagu guulaystay aagan waa xasaasi marka laga hadlayo muhiimadda galka ammaanka la wareegidda iyo madax bannaanida Soomaaliya oo ay qasab tahay in dawladdu iyadoo ay maamusho ciidamada dalkeeda ku sugan